قصة في كتب التفسير شيغان آيات مركي مريا وما تدري نفس نفقرن ميسو ماذا تكسب غدا بري وحي شقيسان يا مالك قدام بين منبا وما تدري نفس نمؤغو بأي أرض تموت لك يكون ماني ودك أوغو إيماننا ما قرنيسو نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ومال مالما كميدا فرديا مجلس كيسي ويناء الشام برغا دحي شام كويالي جوغا أما يوم بمركا جوغا مركو بلقيسو تغي هادي دون هان نقطتي أيام ملك موت صو سلامة وصو بوقدي حلقدي 10 كبا اسكا فديستay سو هاو لو دري سوغay inuu soo qabto wax yar markuu malik mood fadhiyo wuxuu arkay nin xalqadii 10 ka dhex fadhiyo nabi Suleymaan dhageysanayo 10kii iyo muhaadaradii waanadii fadhiya oo saacada kadib la amray malakul mood inuu nafta kaga soo qaaday Hindiya intuu 10 ku socday ninkii aad u fiirinaya oo indhaha ku mudahaya xulay ninkaani soo ninkii ilaahay ku yiri ma aha nafta kaga soo qaad tuuli heblo Hindiya ku taala maxaa ninkan Yaman fariisiya aminkan maxaa aminkan dhigay Shaam iyo Falastiin iyo Suuriya iyo Lubnaan ninkii admalagii baa galay wuxuu ka shakiyay ninkii indhaha ku koorhaya ku mudaya aad u fiirinaya markii 10ku nabi ilaahay Suleymaan dhameeyay ya nabi Suleymaano ninkan nin dareen qabo aad buu iifir waan ka shakiyay inaan ka fogaadaan rabaay dabayshaadii dadka qaadayta diyaaradda iyo amar Hindiya laga tooro dabayshi baa loo amray Hindiya laga tooray maxaa ka daba tagay durwaagi dadka libaaxi dadka leen jira ka daba tagay malakul mood baa ka daba tagay libaaxi baa halka nafta kaga soo qaaday markii xadiis baa ku min saxiixa markii ilaahay ajashaada iyo dhacaankaada oo meel ku qoray in naftu ay kaaga baxdo dan baa laga gelinaya sad Nairobi iskaga joogto eed u ladan tahay in baxadii maanta Muqdishaan gaarahaya saada airportka uga degto xabadu iftaba kugu dhacays ma heblan gaarahaya kanaaca ku cuna kow dan aan weliga ka soo galin meesha ayada laga gelinaya ما يوجد مال نفط كعقب بحيس مرة يصير هاي موت قفلون هذا بطي نفط مال يكب يحل يبحنا أذن كور قبن آدم وحوي الدنيا يسكت دقيقة كديار قرو آخر أوصى قادو إلهي كحشو توبت كيل ما أنت هذا الوقت وأول يوم من رمضان بابكو إمامكو إنه قصوا 10 يوم ما أنتوا إسلام هاي مركز آدي هلا سئل عليه